wasiirada dekedaha iyo gaadiidka badda ee dowladda federaaliga ee Soomaaliya iyo wasiirka kalluumeysiga ee dowladda Soomaaliya mudane Cabdiraxmaan Maxamed ayaa waxay booqasho ay ku tageen deegaanka Goobeen ee gobolka Jubbada Hoose waxaana socdaalka ku wehlinayay wasiirka ganacsiga ee maamulka Jubbaland iyo wasiirka kalluumeysiga mudane Ibrahim Baajuun waxaana dhammaan wasiiradani ay kormeereen goobaha taariikhiga ee ku yaala deegaanka Goobeen iyadoo sidoo kale dhul beereedka ku yaala deegaanka Goobeen ay kormeero kala duwan ay ku sameeyeen intaasi kadib ayaa waxa Hon Cable TV la hadashay wasiirada dekedaha iyo gaadiidka badda ee dowladda federaaliga ee Soomaaliya Maryan Awees Jaamac waxaan booqasho ku nimid tuulada Goobeen oo aan runtii aan ku aragnay barwaaqada Ilaahay Soomaaliya ku manaystay oo runtii ah wax loo baahan yahay in laga faa'iideysto uu noqdo runtii waxaan rabaa inaan halkan baaq uga jeediyo ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan gudaha iyo dibaddaba inay runtii ay dhaxda u xirtaan dib u dhiska wadankan laga faa'iideysto kheyraadka Ilaahayna siiyay maal gashadaan ku dadaalno sidii nabadda Soomaaliya lagu soo celin lahaa looga shaqeyn lahaa guud ahaan waxa Ilaahayna siiyay oo aan cidna aanan runtii ka baryeenin inaan runtii aan dhaxda u xirano wadankeena inaan dib u soo nooleeyno kaabayaashii wadanka ee shaqeyn jiray sida warshadihii beerihii oo runtii aad arkayso meesha aan taaganahay Goobeen quruxda ay leedahay cagaarka ay tahay iyo barwaaqada Ilaahay siiyay marka waxaan leeyahay Ilaahay hana tuso oo nagu hago wanaaga iyo nabadda inaan wadankeena ku soo celino عبد القادر إيمان دخنه هون كيبل TV مقالة Kismaayo.